بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والصحافات كانوا كساب سيهي شقاقات كصعطاء كوفر قلبيت خاصة مقالة بيضاء اللي حريرت الدور الشضا مركور إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii ku dhintay shaqaaqooyinkii ka dhacay magaalada Baydhabo labadii maalmood ee la soo dhaafay oo ay ku nafwaayeen dad badan oo uu ka mid yahay xildhibaan Cabdishakuur Yacquub oo ahaa gudoomiyaha guddiga amniga ee golaha wakiilada Koonfur Galbeed waxaana sidoo kale alla uga baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo intii ku dhaawacantay intii hantidooda ku weydayna bedel khayr qaba ayaan ilaah uga rajaynaynaa sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay in la dooran karo waxna dooran karo Mukhtaar Roobowna waa muwaadin Soomaaliyeed oo buuxiyay shuruudaha loogu baahan yahay musharaxnimadiisa sida ay cadeeyeen guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed oo guddoonsiiyay shahaado cadeynaysa inuu u tartami karo doorashada Koonfur Galbeed dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qofna lama xiri karo xarig aan sharciga waafaqsanayn awoodda dawladda marna looma isticmaali karo meel ka dhac dhanka ah karaamada iyo xuquuqda aadanaha waxaa nasiib darro ah in dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed uu ka dhasho qabashadii Mukhtaar Roobow oo loo soo xiray si baalmarsan sharciga maadaama aan amar maxkamadeed lagu soo qaban sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya heer kasta oo xukuumadeed waa inay haysataa kalsoonida iyo taageerada dadweynaha sidaas daraadeed waxaa mudan in la xuso in shacabka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ay ka biyo diidsan yihiin faragelinta xukuumadda ayna u baahan yihiin inay u madax banaanaadaan aayo ka talintooda arrimahooda gudaha iyo inay doortaan cidda ay rabaan waxaa sidoo kale xusid mudan in aan ka dignay arrimaha maanta taagan oo aan sii saadalinay natiijada ka dhalan karta haddii rabitaanka shacabka Koonfur Galbeed la siin waayo tixgelinta ay mudan yihiin sidaas daraadeed ugu dambeyntii waxaan ku baaqayaa in shacabka reer Koonfur Galbeed ay isdejiyaan nabadana adkeeyaan sharcigana dhowraan in guddiga doorashada Koonfur Galbeed ay dib u dhigaan doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed inta laga helayo jawi xasiloon oo ku habboon qabashada doorasho xur iyo xalaal ah in kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed uu ka shaqeeyo dejinta iyo qancinta shacabka iyo dib u soo celinta kala dambeynta in odayaasha dhaqanka ay muujiyaan kaalinta dhaqan ee ay ku leeyihiin nabadda iyo wadajirka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed in musharaxa xiran xorriyadiisa dib loogu soo celiyo sida uu ugu dhaqsiyaha badan loona ogolaado in dib uu ugu noqdo deegaankii laga soo xiray si uu uga mid noqdo murashaxiinta u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed sidaasi oo kale waxaan xukuumadda ugu baaqayaa xildhibaanada xaq waxay u leeyihiin dhaqdhaqaaqooda xur inuu noqdo bariyahan dambe waxaa bilaabatay in xildhibaanada loo diido deegaanka aniga aan deganahay inay u soo gudbaan waxaan leenahay arrinkaasi arrin wanaagsan maaha baarlamaanka xor ayuu ka yahay golaha fulinta wuu ka madax banaan yahay waxaan leenahay xukuumadda inay ilaalisaa
sharciga waddanka u yaalla dastuurka waa inay ilaalisaa loo ogolaada xildhibaanada xor inay u noqdaan dhaqdhaqaaqooda هذا وبالله توفيق هذا المحسنين